mararka qaar waxaa israada waay aad Soomaali uga dhalatay waay aad Soomaali uga dhalatay mararka qaarna waan farxaa markaan arko hooyadii macaan oo si fiican ii soo korisay aabbahay oo ii soo koriyay aan idhaahdaa ragaba aabbahay baa ku jira oo walaalkaa baa ku jira haddana markaan arko nin Soomaaliyeed oo haddana gowracaya naagtiisa walaashii ama gabadh Soomaaliyeed ka duubaya fiidiyoo waxaan idhaa waay aad Soomaali uga dhalatay anyway anagu dhulka mana soo bixin anagu waddan baan ka dhalanay anagu waddan baan u dhalanay anagu reer baan ka dhalanay qofna ma jecla qof bini aadan oo jecel in walaashii xumaato walaashii fiidiyoo laga duubo ma jirto hooyadii la dhibaateeyo hooyadii in fiidiyoo laga duubo qof nin bini aadan oo jecel ma lahan haddana gabadh buu sidaa u galaya anyway waxaan ka fariin uga dirayaa qof walba oo Soomaaliya oo jecel gabdhaha Soomaaliyeed ani maanta waxa igu weynay waxa waaye dhibaatada walaashii ku dhacday anigana Britol way igu dhici kartaa haddana Britol waxaa la nin dameer dilay dhinac lay raacayo laba cisho lay wadwadaya laba cisho garabkayga la soo istaagaya haddana maanta qofkii shaytaan i dhibaateeyay si caafimaad leh si caadi dariiqa u maraya laba cisho lay hadalhaynaya taas maanta ka gubanaya ilaa xal u seexan waaye